بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada nooga xiran halka kan channelka Elvis Family channelka Amirada qalbiga ku soo dhawaada fariintan gaaban insha Allah. Waxaan jeclaystay muuqaalkan inaan sameeyo fariintan halka kan in kugu soo gudbiyo markaan arkay waxyaalaha aadka oo wax ka dhowrsi la'aanta ah ee bulshada dhexdeeda dhalinyarada ee ka socda TikTok iyo meelo kaleba inaan wax yara ka dhaho lana taliyo gabdhaha iyo dumarka kuwaas ayaynu qaraabanahay, kuwaas ayaynu ka naxaynaa, kuwaas ayaynu ka damqaynaa dhibka lagu sameynayo iyo kuwa ayagu isku sameynaya ama ayadu nafteeda ay ku sameynayso ayadoo laakiin isdareensanayn ama ay sii hirgelinayso niyad xumada bulshada ay dumarka qabaan inay ceeb tahay, inay ayada dhanba cawra tahay, ayadoo dhan hilib bannaan yahay. waxaas inay sii rumeeyaan oo isku sii rumeeyaan anoo ka hortagaya waxna uu iftiiminaya baan jeclaystay muuqaalka kan in aan idinla wadaago. qof ka qarsoon baraha bulshada cid la socota ma jiro. Facebook hadduu daawado TikTok hadduu daawado TikTok baa kow ka ah waxa ciyaalkii dumarka waalay. waxaana yiri waa meesha kaliya ee xubnaha kala duwan ee jirka lagu soo bandhigo, badeecadaas lagu soo bandhigo, lagu xaraasho. waa meesha kaliya ee dhowlo tuskaas laga sameeyo ee hadda dhalinyartu inta badan ku mashquulsan yihiin. berrina waxaa macquula kan intuu xirmo shirkadda dhanba ay kacdo in mid kale la samaysto kasii daran. ujeedada dadka sameynaya baraha bulshada TikTok iyo kuwa la midka qawaaniintooda aan xadidnayn inta badan muuqaalada gaagaaban lagu sameeyo markay sameynayaan ujeedadoodu ma ahan akhlaaqda bulshada iyo wixii la midka in ay inta badan qiimaha siiyaan. ma waxay qiimaha siinayaan bas la tartanka bara kale bulshada inay la tartamaan Facebook, YouTube ama meel kale la tartamaan ama haddii alla ku ron yahay lacagta iyo waxa ka soo gelaya ay fiirsadaan. adiga marka meesha waxa ku baaba'ay qiimahaadii, qadarkaadii, haddii alla ku ron yahay karaamadaadii ma ogid, laakiin adaa is cunaya. laa xawla walaa quwwata illaa billah. markaan arko dumar ama gabdho badan marka hadlaya kuwa asturan walow haba isruxeene waxa ruuxayaan waa ogahayo ummadii shayaadiin iyo jiban baa afduubay dadkii meel ay joogaan ma isoga. waalidoodu waa la yaaban tahay, ninyahow adigu waa la yaaban tahay gabdhaha noocaas, laakiin anigu lama yaaban. waxa sababayaan ogahay dadkaani ma fiyooba, xaqiiqatan uma fiyooba, shaklan uma fiyooba. waxay isu fiyoobeen waxa haya waxa weeye waa xanuun ruuxi, jin iyo shaydaan baa afduubay oo dhaqlayntaya waxa nooca asaga ka masuula. haddii dhammaantood si rasmi loo quraan saaro waalidkood u duceeyaan oo aysan habaarin, allah ku dhaartay ayaga maalinta dambe ka qajilaya waxaan oo ka haraya. markaan arka marka kuwa asturan iyo kuwa kale iska dhaaf, laakiin markaan arka haweeney qaawan isqaawanaysa oo u kasaysa ma ahan mid nolosheedu saan soo ahayd, saan ku soo weynaatay, saan caadil ma aha. mid marka hore waxaad arkaysaa xijaabnayd, asturnayd, wanaagsanayd, isbedeshay daruuf soo wajahday darteed oo fiirsada. inta badan dadkaasi daruuf ku dhacday bay waxa la noqdaan argoosi ayagoo ka wada, filcelin ayagoo ka wada, laakiin way sii muquurtaan, dhibkii bay sii muquurtaan. argooso, filceli, laakiin damiirkaada iyo mabaadi'daada ha ka tilaabsan, hana ka tanaasulin. markaan arka marka gabdhahaas wada qaawan, xubnahooda jirka, dabadooda, naasahooda, meelaha soo bandhigayo oo kas ugu faanaya, kas u soo bandhigay ayagoo haddana sawirka lagu qurxiyey, muuqaalka lagu qurxiyey. ninka marka Facebook ku arka TikTok saas uu leeyahay baa ku rikman hor alla maxaa ku hore uga xir miskiin alaabtan waxba kama fahansana, waxba kala garan mayo. markaas ay u taanaynayaan fiirsada ayagii marka dambi kala sii dhaay. marka qofka intuu silaha qofkan xun wax u geyso asaga dhibaato u geysanay dhinac kale bulshada marka ayada ka masuula dhibkan dhacay. gabdhahan inay sidaan noqdaan naga ka masuula, wallah naga ka masuula. ayda ka masuula, daawashana ka masuula,
كومنت الله كعب صادق قريش حتى وكمسؤول إنه حمان تصيف عفتن لأن محيا الله كعب صيا الله كعب صن وشدده ما كومنت أنت ماشي لقب بحيابي براهم بالشدة وحكوا فيريا ومقالكوا كصعدا أدو لقى واسقب بحين زعوم بوي كوا الله يفكسر لقنا ودايا قبل قاوم فيري تان إنكارته كل عادي فيري قبل هنا ميري مريان فيري بيج كيس الله يفكسر لقنا يا مرك وشدده ما أنا مركا وحمان كهرتها أصلا وحمان فافين بيج كيسو كوكا لك عصنية أبي فرصة dhibaatada meesha ka jirtaan ka hadlaya midba YouTube soo fariisanaya muuqaalada xumaaba soo bandhigaya gabdhihiyo afkooda xubna taranka uga dhawaaqaya ayagoo isruuxaya ayagoo iska dulboodboodaya ayagoo saa isku bay soo bandhigay war waxaan fiiradada war waxaan waa munkar haddaan laga hortag asaga ba sii faafin dhinac ka ogow asaga laftigiisu wuxuu leeyahay xumaan ka hortag xumaantii uu sii geliya marka iyaduna waa qayb hawshan inay faafto oo bulshada ku dhex faafto marka ujeedada in soo wada waxay tahay markaan arkay gabdhahaasi wada aan asturnay wada qaawen waxa sameynaya waxa igu soo dhacda hadal geel jiruhu dhaho bulshadan jaahiliinta rag u hadalay dhahan oo ah dumarku waa hilib dumarku in la isticmaalo loogu talagalay bas alaabta guriga taalla kama duwana saxanka iyo qaadada koobka shaaha aad ku cabaysid galaaska biyaha aad ku cabaysid kama duwana ma intay cusub tahayna cab maalintii duugoodana tuur mid kale raadso raggi sida dhahaya hadalkooda igu soo dhaca oo aanu isugeyn ba marka qaarkood rumaysanaya markaas marka dambe acuudu billahi min shaytaan rajim waxaas hadal ma aha laakiin yaa rumaynaya midaan isqaawinays maxay isu qaawanaysa su'aal baan isweydiinay ma hal kartimi adoo asturan rag ma cambaarayn kartin xuquuq darrada idin kula kacayaan miya maxay isu qaaways hatta gaaladan hada weydiisad dumarkooda rajabada bas ama fanaanad yar lawyaha bahal umrayo goonabay wata limaada ninku waa labisan yahay maxaa kuwa arooska dhiganaya gabadhu waa qaawanta intaan timaha malaha aasi waa qaaway asiga waa labisan yahay limaada ma dhahayno gabadhu waa alaab ma dhahayno tooso ma dhahayno laakiin ficilkeena wuxuu leeyahay waa alaab saa hadaysan noqon jir waaya jirkeeda waay mar walba muhiimadu waa jirkeeda la laana inteena badan ilaahay intuu ilaahay naxariisto mooyaan haweeneyda kartideeda ma fiirino aqligeeda iyo waxtarkeena ma fiirino jir baan fiirinaa jir iyo baag iyo alaab ku xir taa u fiirina marka waa hilib banaan yaal bay dhaheen marka dhurwaa weeye ninkuna taa fiirin nin walba fiir marka gabadha banaan jir waxaan aan ku fikirin midaas u fiirnay jir jinsi buu ka fikiray adiga isku rumayn marka waxa ay ka aaminsan yihiin ee xun tay soo qawisay hada banaanka ay soo dhigtay waa isku rumaysay waxa tira alaab baan ahay wax la isticmaalaan ahay bas wax kala qiimo malihi karti malihi dadnimo kale malihi ba isleedahay haygu rumaynina marka billahi alayk intaasaan idin la hadlayo idin talinayay haygu rumaynina tan haygu rumaynina diida xitaa adoo asturan isruuxa daarad taad way dhaantaa meesha qaab kuwa intay tagaan xumaanta kale sameeyaan waxa kamid ah heerka tatawurka macnaha horumarka uu sameeyay biyo isku shubaysa iyadoo dirac xunqatan kaasa meel uu marado uga dhigaysa kaas kuwa badda aadaya badda galay waa xumaantii oo loola sii kasay xaalka hadda ku sugan yihiin baan kala hadlaya rubama laga yaabaa mid bari aniga iga wanaagsanaato adiga ka wanaagsanto alla hanuuniyo alla toosiyo laakiin xaalka hadda ku suganaan ka hadlayna ma habaarino macaayeen laakiin tusaalayaal baa idin siinaya kuwa ay u bixiyeen heblaaya qaawan mid ay u bixiyeen hadii alla ku run yahay hatta heer waxa loogu bixiyay hadda oo ciwaanada kala duwan ee la yaabisay inta indhaha lagu harqinayo baraha bulshada waxa kamid ah gabadha ugu nikada badan ee TikTok tan ugu fataweyn tan ugu naasaweyn tan ugu jirweyn tan ugu foolxun tan ugu qurux badan tan maxay yeelaya waxa yeelaya waxay ka tageen xishoodkii iyo dharkii bulshada hadalkeeda ee xataa kuwa caayaya markay caayaan oo ku caayaan qofkii uu si ficil toomaya markaas bir wax ka sii daran keenaysa way si caayaan waa si caayaan maalinta dabayado subtu saarto sida lagu dhalay laga yaabaa inay timaado hadduu iyada nafteedana la xisaabtamin allowna uusan asturuna qaban marka annaga waa ka mas'uul annaga faafinayna annaga baa caayina annaga baa utaw annaga baa ka mas'uula annaga ka mas'uula run haday meesha timaado lillahi meesha timaado waxaan saameyn baa yeelan lahayn waxaan saameyn u yeelan lahayn waxa weeye dhamaanteen lillahi kuma shaqeynayna nooc kale aan u shaqeynayna inta ilaahay u naxariista mooyaan حتى هذا كور واحد شرطي أنا يجاوب ده أمان إنه كسر قاعدني خيو أنه كور مني قليلا إنه يكسب سنين وأيضا سوق أنه أيضا تكتو لي كم ده وحبلا يكون لي يعني تصار يرى إيدي الشيء مركز أركيس قبل ده صورة ده هو أركيس هو حجاب أنت هو أسطورة مركز دنبا دركتين أديك بقى يحيى هذا اسمه ده يبقى ولا شباب موديسة هو يدا بالموديس أرصانا والدكم فرحنا أبياتكم فرحنا ولا شيءكم فرحسن لماذا
سؤال هدان قبلها ويدي لماذا وحنوصل أو تصمينيسان لماذا أدو رميسنتيهن أسكو رمينيسان ألابان هاي رغو سار شاكتين بارونا كرتكل مليهن إن أنت كاسوري من هذا بضع قبر هذا مركي تيك توك وجرتو أو يسوحي أنت كبلا هذا معناها باقا يتبع أم بيروح لأن مركا وحي سوتشي لا هاي ساعة أم باناي ها alaabta un baan haysaa wax kale ku qiimo aan ku leeyahay ma jirtee saana qiimo ku leeyahay inta ii nooshahay aan casriyeeyo aan badhigo aan xaraasho laakiin inta kale taadu markay dhaxda tusbaxan iska qaato ilaahay iska bariyo markay soo guto waxay ku baabaano ninka uu isticmaalo baabiye waa hadalkeena luqadeena aan ku hadlay laakiin xaalkeena ka turjumayo marka aan ka hadlayo xaq haweenay oo xaqiiqatan aad aan u dayacnay haladana arko waxaan leeyahay way ka helinay way ka naga helinay ilaahay inta ka cabsataan is astura waliba waxaan leeyahay haweeney kasta oo qaawan oo aan asturnayn oo xishoodka ka tagtay kasna u sameysay iyo maageeda oo TikTok ku jirto wax la soo qato la soo xaday ma ahe laakiin ayadu ciwaan ku leh ilaahay haduusan hanuunin haweeney mustaqbal yeelanaysa ma ahan mid guur gashana ma ahan mid hadii alla ku run yahay wanaag kalena ma ahan waxaanay rumaynaysaa marka hadalka gel jira badeeco jir baati bas wax kale ma tii alaabta guriga ka mid maanta alaabta duugoydana bedel tibay rumaynayaan marka iblay qaawin bileeyay magacaas oo la bixeen kuwa waa surdux kaana waxa mudda sariirti ninkeeda inay jiifto oo ninkeeda ay ku sugayso sababta marka bulshadan u soo bandhigto waa maxay fikradda bay rumaynaysaa inay jirtahay inay alaab tahay in alaabta guriga la isticmaal bas ay tahay oo kaliya fikradda geerjilaha ee ragga in badan oo intooda badan rumaysan yihiin xataa dumar badan ay rumaysan yihiin inta loogu talagalay bay rumaynaysaa oo dadka jiilkaas aaminaya oo dumarku saa inay yihiin badeeca alaab waagi hore galbeedkan gaaladan qarni ka hor dumarku waxba kuma tirin jirin maray dilaan maray aasan alaabta guriga kamid aaminsan jireen xorriyad ma lahayno ingiriiska aad arkaysaan hal qarni iyo bar ka hor haweeneyda looma ogolayn inay alaab soo iibsato xorriyad ma lahayn ninka soo iibin jiray waxa mitid bal waxay ka niqaashayaan oo ka hadli jireen haweeneydu aakhira janna ma gali haweeneyda ninka loo abuuray inay u adeegto way aaminsanay cagsiga hadda tagan marka barigi dambe soo gudbeen oo kacdoonadooda imaadeen oo furfurkan Yurubtaan iyo Ameerikan iyo casrigan uu yimidna maxay dhaheen free meesha aragti ku xaar markaas go'no u xireen markaas waxa mid ayaga dhanba cawro soconaysa kaanama waxa mid cawradii lagu inay hadaa rabti marka inaad ogaatid cawro soconaysa kuwa fiiri cawradii cawra aad maqli jirtay oo luqaynayso nool hadaa aragti kuwa fiiri wadna haysa marka qolkooda jiifka gaarka ma ku jira dadka waana shaqaysanay xafiisyada fadhiya لكن بالشدة قالوا وهو برتين وحوالله ما أهن لكن أديكوا مسلمة فكرة دادونو دادك هادو كائم من سنايا مركو رأي إنا هيد بوح استعمال الله تلقى أساس ما يصير تسيدي آمنية مركا دادك قاركود يوروب تغان قالوا تغان waxay arkayaan ayaga dhaqankooda way qaadanayaan gabadhii karaar xunay qaas halka fiina seeda ka muuqda inta go'nay qabta Soomaaliya soo horfariisana marka wuxuu sheegaysaa yaa dhageysanayo yaa wax ka shay wax uu laga sii qaaday waxa weeye la sii aaminiyo dumarka dumigooda lagu sii bado leena bulshada hadda uu ku dhaxnooshahay iyo bulshada Allah la soo ka soo jeedid ideology ahaan dhaqan ahaan diin ahaan wax dhan way kala duwan yihiin ma isla keeni kartaan marka waliga inaad cugdad iyo cay iyo istifaac iyo inaad xubaanti sii siyaadisid maalinta dambe nigiskaada hoose ka soo aadaysid bay noqonaysaa maxaa ku kasbay marka adoo mabaadi'ada ka tanaasulin wax ma dhacsan kartid miya wax iskama difaaci kartid miya wax ma soo jiidan kartid miya ina jirkaada soo bandhigtid indhasaada dabadaada muujisid miya wax lagu soo jiidaa miya wax lagu waala waa maya adoo asturan oo caadi oo afka asturan oo adinka asturan oo meel kasta ka asturan wax ma soo jiidan kartid wax ma dhihi kartid miya kartid ma yeelan kartid miya taas aniga isweydiin su'aashaas marka waxa la rabaa meel intaad ku qoratid alleelaha nidaamkayga wax ka bedel dadka jaahiliinta su'aashu aragtidoodana ha isku rumayn in aad qadiyad leedahay iyo mabda ayaga caydooda iyo xumaantoodana aan uga tanaasulayn inaan u sheego weeye maanta laga bilaabana ilaahay u toobad keenaa wax kale aan ku bedela hawlahan xitaa ugu yaraan aan iska boodbooday laakiin aan is asturaayo xumaanta kale aan iska dhaafaayo mid baa hadlaysa ayaga kamid oo taa idin sheegay waa ilaahay subhanahu waxay leedahay ragibaan ninka ugu xun maanta Soomaaliya darbijiifkan ugu liita
kan ugu xun ay khabrada istaaga ku cabaa ayada ma guursanaya hadduu guurtimaado midda gurigeeda jirta asturan buu raadsanaya adiga laakiin araggaas iyo beecbeecaas waa kugu rabaa marka laakiin runta timaado waa lagaa booday nin ma jiraa rag maanta ma jiraan bay leedahay ayadin waxaanay samaynaysaa fiirso maroodiga baa la yidhi takarta saaran ma arkay tan kale u arkaa markaas leedahay rag ma dumarka badan sumin arag oo dayacan oo wada asturnayn oo xijaabka ka tagayo akhlaaqda ka tagayo wada qaaqaawan oo halkan boodboodis sumin arag rag bay eedeynay waxay ku hayaan rag ma jira maanta kuwaas ragga ma sii jeclaaday afcaashooda markay rag ka hadlaan dumarna dumarkii hore ahaayeen hadda leedahay raggii hore way ha dumarkii hore ahaayeen ku taala meesha ee adigu istoosi xaadiga cawra ka dhigay cawra soconaysa maxaa ka dhigay maxaa iskugu rumaynaysaa hadallada kuwan ee liita ee fuxshiga iyo faaxishada iyo fisqiga ku saabsan maxaa faajirad ka dhigay maxaa inaad dambiga la jahrayd ka dhigay nabiga ilaahay wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ummadda dhan waa loo dambi dhaaf khaladaadka galaya qofan khalada anigu khalad kama marnay adigu kama marnay laakiin qof walba ilaahay baa asturay laakiin qofka la soo banaan baxa ilaahay uma dhaafo mujaahidka qofka la soo banaan baxa ku faana dadka hortooda dambiga ilaahay uma dhaafo waa qof asagoo isfadaxaynaya yaa marka u haya kaar asturada cid uma hayso marka dhalinyarteena gabdhaheena waxaa leenahay ilaahay ka cabsada sharaftiina ilaalsada bulshadan fikirro xun bay dumarka ka qabaan ha rumaynina beeniya karti muujiya intaan wax ka fiican keena الله إذا بركيه أنت أصلا جعلستينا كده فدا يدوفانتا صعوتا فسقة يحمانتا يدل النبضة ما تدل يربضا أو تيك توكا كتشرا كصعوتا كوات أركيسها هدي ألا كورن يهي متلية وحا إسن متلين كوا إسقبا تتكورتود مركاسي هدو وحير مركا رالينا هذا قفكا إنو سمعدي سقبي دنمدي سقبي مؤغا مركو هوري هاتلابسن إلا إنا قادد وح أدهبتين موياني وبروح كاغا إيمانين وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته